السلام عليكم. magacayga waa Maryan Cusmaan Maxamed. waxaan ahay macallimad. waxaan dhigaa klaaska 4 iyo 5 qoraana waan ahay. waxaan qoray buuga Ayeeyo's Golden Rule kaasoo af Soomaaliga ku noqonaya Ayeeyo taladeeda dahabiga. badan waxaan u qoraa caruurta wadanka ku cusub. buuga waxaan u qoraa because markaan yaraa buugaaga waan iska jeclaa in akhristo. saaxiibo badan ma haysan. buugaagta u jeestay qolkaan isku xiri jiray, buugaag badan aan akhrin jiray. waan jeclaa inaan iska sheekeeyo. marka saasaan ku weynaaday. waxaan rabay inaan qoro buugaag u qoro caruurta Soomaalida ah, caruurta Muslimiinta ah oo sheekooyinka waxay soo mareen inaan ka sheekeeyo. maadaama aan macallimad ahay, aan caruurta la kulmo 8 saacadood maalintii, wax badan aan maqlaa, wax badan ay ii sheegaan, wax badan aan arkaa. buuga wuxuu ku saabsan yahay inaan Yaasmiin la dhaho oo 9 jir ah oo Mareykanka oo timi reerkeeda soo raacday. markay timi ay iskuulna bilaaday, caruurta baa dhibay oo caaya, oo xijaabkay ka jiidaan, oo cuntada guriga ka soo qaadato, cuntada Soomaaliga way dhahaan way ku caayaan because caruurta ajnabiga ma garanayaan meeshay ka timi oo misfahmin. marka Yaasmiinna way aad ugu xumaatay, laakiin lessonka aan rabo in caruurta buugan ka bartaan is maaha inaa markaska aad challenge qofkii ku dhiba. mar waxa fiican inaa ka fiicnaatid naxariis tustid, because diinteena wuxuuna baraa inaa dadka naxariis la tuso. inkasta ayada ixtiraamin, ayada ixtiraam bay tustay. markii dabeetana way isbedeleen caruurtii markay arkeen ayada inay gabadh maskiinad, gabadh fiican ay tahay. marka lessonkaasaan rabay inay caruurta ka bartaan. caruurta waxaan ka bilaabay caruurta hadda u dhigo ardaydeeda aaday uga heleen markay u fiirsadeen pictureska. sawiraha waxay arkeen inay caruurta ayaga u eeg yihiin, gabadha inay xijaab ay haysato, ay gashan tahay. marka aaday ugu farxeen runtii. markay farxeenna farxadooda anu farxad ii keenay. waa the reason aan buugan u qoro. dadka cadaanka oo buugayga akhriyay waxay iga sheegeen inay buuga aad uga heleen. waxay wax badan ayna ka barteen. waxay iskuulo badanna way iga yeeraan inaan caruurta la hadlo, caruurta ajnabiga iyo caruurta Soomaalida, inaan uga sheekeeyo experience-kayga, aan caruurta waaniyo. waxaan soo wada buug cusub oon hadda ka shaqeynayo oo ku saabsan wiil la dhaho Khalid. markaan buugii hore soo saaray, wiilasha ardayga igu xanaaqay oo dhahay gabdhaha kaliya u qorta buugaagta, anaka waxna nama qortid. marka buugan inaan Soomaali Khalid ku saabsan yahay oo wuxuu la saaxiib yahay inaan Scott la dhaho, inaan cadaan ah. dhibaatada waxay Scott inta mashaakil buu geliyaa Khalid. haduu Scott uu casharkiisa ilaawo, haduu Scott uu trouble galo Khalidna ugu dayada. marka lessonka aan rabo inay caruurta ka anfacaan Khalid inaanu wuxuu Scott sameeyo inaanu ku dayan, because badan caruurta markay isku dayadaan markaas u dhibaato imaado. saasna ma rabo inay ku weynaadaan. badanna wiilashaan ku arka because waxay ka baqaan inuu saaxiib la-aan ku dhaco. marka waxaan rabay inay ogaadaan saaxiibiintu way badan yihiin. waxaa jira saaxiib fiican iyo saaxiib xun. saaxiibka fiican baa la raacaa, saaxiibka xun meel xun buu ku wada. marka haduu waano kaa qaadanen waxaa fiican inaa iska fogeysid.